Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga gabi ahaantiinba meel kastoo dunida afeeda ka joogtaan waa idin salaamay waa walaashiin hoodamaasho idinla gacmo furan kusoo dhawaada waa mar kaliya barnaamij kaleeta iyo sheekadeeni qaybteedii saddexaad silicii ee soo marsiisay eedaday geeridii hooyaday ka bacdi qaybtii saddexaad ayay noo maraysay asxaabta qaaliga oo weliba maraysa meel xasaasi ama qaybtii ugu dambeysay oo weliba meel noo maraysa waxaa idin leeyahay ka bogasho wacan kusoo dhawaada gacmo furan waa subscribe noo saara asxaabta qaaliga hadday ka heshay sheekada like noo saar subscribe hadduu ku ahayn ee markii ugu horeysay aana soo booqatay ee tahay subscribe noo saar noo sii share garay oo asxaabtaada la wadaag qaybtii labaad sad socotaanba waxa ay noo maraysay gabadhii oo ka jabtay gacan oo gacan ka jaban aabanihiina uu jiro safar oo gacantii ay qaloocatay markaan gacantii waa ay u reysatay laakiin maxay kaaga taalaahe way qaloocatay gacanta oo ma aysan kamin cidana ma kaban lafihii sidii ay u jabeen ee ay u kala qaloocnaayeen ama ay isku dhaafeen ama ay u kala baxeen ayay u kala reysteen cid isku duwatay ama cid isku aadisay amaba cid kabtay ama cid duuduubtay midna ma aysan jirin kaaga darane howl ayaa loogu sii dari jiray mararka qaar biryahan markii xoogaa ay soo roonaatay laba ul iyo anta loo geliyo ayaa la dhihi jiray naaqabo howsha oo shaqada oo guriga iga soo hagaaji weelashana iga dhaq ama iga xal sidaasay tahay waxaa usii dheeraa diiftii uga taalay korka oo aan la fiiri karin oo korkeeda oo dhanba la arkinba meel fiyo ama meel muuqata oo wuxuu ahaa haar iyo boog oo kaliya ayuu korkeedu ahaa waxaa usii dheereed in ilmihii ay aad usii salceen ama ay aad usii xanuunsadeen kadib markii ay gabadhan gacanta ka jabtay ama jugtooba ay kasoo gaartay gacanta oo ma aysan haysan ehel kale oo dhaqaaleynaya oo ayada ahayn maadaama hooyadood beri hore ay dhimatay rabbina ka jeclaaday iyada ayaa hooyadii booska hooyadii u gashay maadaama ay tahay walaashood ka weyn oo war ka hayana uusan jirin eedadii arxanka u noqon lahaydna ay sidaa ula dhaqantay oo ilmaheeda oo kaliya ay fiirsato kuwaana aabadan ka gelino ay ku shaqaysato oo kaliya rajo kale oo ay ka leedahana aysan jirin adoogii safar ayuuba sii aaday asagooba war ka haynin waxa hoose oo xaafada ka jira oo ilmaha diifta iyo rafaadka ka muuqata aan dareemin ayuu haddana siiba baxay oo wuxuu sii aaday safar uu ayaan ku maqanaa waxaa dhacday in ay soo laabato ayeeye iyo eedooyinkii iyo adeerkii ku maqnaa Nairobi caafimaad ayaa ayeeye loogu waday halkaas waa ay soo laabteen oo hadda waxay ku soo laabteen magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin ilmahan oo ay marka hore ka tageen isla guriga wuxuu ahaa guri aad u weyn oo ilmahan hooyadood marka hore dhinacay ka deganeed oo ay ku dhashay ilmaha Allah naxariistay maadaama ka bacdi ay dhimatay iyaduna dhinacay ka deganeed haatan meeshii ay hooyadu deganeed marka hore oo ilmahan lagu dhalay ayay hadda naagtu degan tahay halka gurigu laba qayb kale yahay oo dhaxda iskaga furan yahay qaybtii ay deganeed marka hore ayay haddana soo degtay markii ay soo laabtay iyadii iyo ilmaheediba laba gabdhood waaweyn iyo wiil ayay ahaayeen waa ay soo laabteen ayay marka ay soo laabatay ayay waxay aragtay ilmihii oo rafaaday oo silac ka muuqdo gabadhii oo gacan ka jaban iyo ilmihii kale oo rafaadsan oo kala habaabsan oo aamin la aqoon karinba ayay gabadhii ayay waraysi la yeelatay waxa ay dhahday ayay maxaa kugu dhacay oo gacantan ka helay way u sheegtay si walba oo wax u jiraan waayo markaan guriga ayeeyo iyo dhaxda buus kaga furan yahay maahan iyo guriga kale si toos iskuma furna laba qayb ayuu kala yahay balse irid wuxuu leeyahay dhaxda oo la iskaga maro guriga ayay timid ayayna u sheegtay markaan oo ay la qaybsatay sidii waxay u dhaceen iyo sidii waliba joogtaan ay u soo gaartay aad ayay u dhaqnatay aad ayay uga xumaatay waxba ma soo celi karin oo joogtaan waa gacan kala qaloocatay balse aad ayay ugu dhaqnatay ayay waxa ay go'aan ku gaartay in ay ilmaha gurigeedan ku haysato oo ay soo wareegsato
sidii ayaa iyay ku soo wareegsatay gabadhii isbitaal ayaa la geeyay gacantii ayaa inta dib loo jabiyay oo sida qaladka ah u kabantay ayaa inta dib loo jabiyay dib loo kabay halkaas ayaa ilmihii rafaadkii iyo silixii uga haray ayeeydad ayaana dusha u xiratay iyo eedooyinkii iyo adeerkii kalaba oo adooga la dhashay oo dhaxda u xirtay oo ilmihii dusha saartay ilmihii dugsi ayaa la geeyay dugsi ayaana la geeyay ayaa la daaweeyay oo la soo jabiyay oo la ii kabay waana ay ii raysatay hadda gacantii waa ii toostay haba ahaatay mid jaban oo waayo gacan jabtay waxaa la yiri laf jabtay sideeda kuma soo laabato inta badan Soomaalidu sidaas ay ku mahmaahaan maadaama iyada ay da'yarad haddana si qalad ay markii hore u kabantay meel xunna waa ay ka jabtay oo aan si fiican u kabmi karin oo qaab daran oo xusulka meelihiisa ayay ka jabtay inkastoo gacanta waxay tiri hadda ay suun u qaloocan tahay haddana alxamdulillaah waa la ila dadaalay inta karaankeeda ah waa ila dadaashay waana ii kabantay ugu dambeyntii waxay tiri waa aan soo waaweynaanay ayaa dusha noo soo ridatay aabba ayaa imaaday sidaas ayaan aabba arintii loogu sheegay eedana sidaas ayuu aabba ku furay labadii cunug iyadoo haysata ayuu furay oo wiil iyo gabar ah iyo iska furay anagana ayaa na soo koriyay eedooyin hadda waa aan waaweynaanay waa ay weynaatay qisada iiga sheekeynaysay waa weynaatay reer ayay leedahay maasha Allah wiilkii iyo gabadhii kalena waa ay guursadeen laakiin dhaawacyadii ma iloobin ayay tiri oo qalbiga iigu qoran yihiin oo waxay ahayd nolol mugdi aan soo maray anna waxaan jeclaystay qisadaas inaan idila wadaago hadda maasha Allah waa ay fiican tahay reer ayay leedahay in fiican oo ladan ayay guursatay noloshii mugdiga ahaydna waa ay ka baxday nolol adag way soo martay laakiin hadda alxamdulillah waa ay dhaqan tahay caruur ayay haysataa aad ayayna u ladan tahay maasha Allah balse aniga ayaa waxa jeclaystay qisadaas inaan idila wadaago waxaan idin leeyahay qaybtii saddexaad ee sheekada intaas ayay gabi ahaanba ku soo gabagabeynaya halkaas ayay noogu soo dhamaatay qaybtii saddexaad ee sheekada waxaan idin leeyahay sheekadan sheeko ka sii xiiso badan inta aan dib ugu kulmi doono waa walaashin Hoodo Maasha oo idin leh waqtigu ha idin wacnaado.